sidee dadka bulshada rayidka ay uga qayb qaadan karaan in la horumariyo wax soo saarka bulshada rayidka waxa uga qayb qaadata laba arrimood aan qabaa ahaantay waa mid oo ah in dadka horta la fahansiiyo waxa dalka oo ka soo baxay ama ku yaalo ayaa waxa ka muhiimsan wax dibadda laga keeno sababtoo cuntadan waa fresh soo ma isan marin yani faranjeer ama wax lagu soo kaydiyo ama la soo marsiyo ma isan soo marin oo waa dalag yani fresh oo maanta suuq la keenay in dadka horta la fahansiiyo leeyahay war bulshooy waxaad adiga beerateen wadankiina kaaga baxay oo kheyraadkaadi ah waa kana ka faa'iideyso waa qodob kale waxa way wacyigelin la helo wacyigelintu waxa kamid ah in yani hadda waxa awadno kale in dadka la yiraahdo war waxa beeraha ka soo baxo way ka manfac fiican yihiin waxa yani kiimika lagu soo saaro markaas qofku wuxuu fahmaa inuu yani ama wadankiisa maal gashado ama wixii wadanka uu dalbado oo qudaartii uu maalmo badaa into soo gato iibsado waxyaabaas uu ku dadaalo sidaas marka waxaan qabaa labadaas faktor ee saameyn karta wacyigelin in la helo iyo in la helo yani taageero dhaqaale oo dadkii yani yaryaraay in la taageero labadaas aan qabaa in ay ka qayb qaadan karto aad sidaad isleedahay isku filaansho cunto ayaa lagu gaari karaa adigoo ku saleynaya khibradaada aqooneed waxa lagu gaari karaa qaba waxay qodob in ka hormariyo ah wadanka carabta kamid ah wadan waxa ku qoran tahay boolkiisa halday nakulu ma nazra wa nalbisu ma nasna yani kelmadaas waxa way waxa anaga aan beeranana waa cunayna waxa anaga soo saar aan macnaha aan samaysanana waan xiranayna sidaas daraadeed marka anaga waxay u baahanahay dhaqaale marka la yiraahdo su'aasha ay weydiisay sidee horumarka looga sameyn karaa in wadanka horta la fahansiiyo ama dadka ay gartaan waxa beeraha ku jiro dhulkan waxaan rabaa taas inaan ku daro dhulka sidiisa marnaba qasaare ma keen horto sababtan waxay tahay ku cadeynaa xabada masagada marka dhulka aad ku beertid wuxuu dhalaa marka uu yar yahay hadii lagu dadaalo hal sabuul halka sabuul halkii mirmee qeydash marka la xisaabiyo lama tiri karo waa boqolaal qeydash sidaas daraadeed marka waxay u baahan tahay in dadka horta la fahansiyo dhulka marnaba qasaare ma keen hadii laakiin si qaldan loo isticmaalo hadii aan iska dhaho dhulka aan mirtan gelinayo suuq qasaare iyo kan aan ka tago wax macnaha ma soo kordhinayso laakiin wuxuu u baahan tahay in lagu dadaalo lana fahansiiyo geedkan wuxuu u baahan yahay dalagan wuxuu u baahan yahay goonida mid walba specific wax la yiraahdo gooniyo shakhsiya jiro in la ogeysiiyo dadka la yiraahdo waxaan beero dhulkan aan waxa aaminsanahay marnaba faa'iido darro ma keenabo ilaa qofka asiga uu isku xumeeyo ma ahane marka hadii lagu dadaalo wax waa laga keeni karaa dhaqaalaha marka waxa qayb ka ah anaga Soomaaliya marka la yiraahdo dhaqaalaha dhan wuxuu ku tiirsan yahay waa beeraha xoolaha iyo kalluunka saddexda qeyrada haysana waa saddexdina marka si u fiirisid waa wuxuu ku soo ururanayaa life cycle-kii beer marka beer marka la badda hadda markii bariga marka soo dhiga badda waxay ka weyn tahay waxa ku nool qalqi way ka weyn tahay waxa bariga ku nool saa darteed marka geedaha ku nool malaaya ku nool intaas oo xayawaana ku nool ilaahana ku qalqi marka hadana way ka baxaan oo waa wax noole anaga ilaah nagu arsaaq marka waxa muhiim ah in la fahmo dhaqaalihiisa loo kabo in yani loo soo laabto wax wadanka asal u leeyahay la fahmo oo aan la dhihin dibadda iiga soo dhoofi dibadda ii kan oo aan wadamo isla shisheeye ama diris ah la maal gelin oo handida yani loo dhoofin oo wadanka la maal gashado la fahmo kheyraadkaas laga faa'iideysto marka dhaqaalaha intaas aaminsan aniga waa ka qayb qaadan kartaa taas fikirkeyga ahaan